سورة المسد سورة ومكية آياته نواشن بسم الله الرحمن الرحيم تبت وحاها لاك سمتين يدا أبي لهب أبو لهب لودي سقعموت أياها لاك سمين وتب يسقودن أبوها لاك سمي نبي صلى الله عليه وسلم markay ku soo degtay aayadan wa andir cashiirataka alaqrabiin qaraabadaadii kuwa ku dhow u dig wuxuu fuulay buurta la yiraahdo safa buurta safa ayuu fuulay markaasuu qayleeyay dadka dhan inay u yimaadaan yaa bani fihr yaa bani caday quraysh jilibyadeedii ayuu u yeeray jilib buu ugu yeeray dhammaan way soo wada kulmeen qofka xataa aan imaan karin qof kale ayuu dirsanay bax maxamed maanta muxuu sheegi doonaa soo dhageyso quraysh oo dhan baa timid adeerkiisa abu lahabna waa yimid asagan waa nabiga adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam markaasay yiraahdeen alla maxamed oo maxaad haysaa waad noo yeerteen markaasuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam bal ka warama haddaan idin sheego ciidan fardooleey ah ayaa waadigan gadaashiisa ku sugan waxay doonaysaa inay idin weeraraan ma iga rumaysanaysaan waxay yiraahdeen waan ka rumaysanaynaa waayo wiligeena anaga been ma kuga arkin runlow baa tahay haddaad na tiraadid waadigan gadaashiisa ciidan baa joogo waan ka rumaysanaynaa markaasuu ku yidhi hadda taas baataad iga rumaysanaysaan waxtaa ka daran ayaa jirta fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinkaga digayaa cadaab oo horteedii ahaatay ayaa idinkaga digayaa iska jar cadaabtaas cadaab ayaan idinkaga digayaa markaas abu lahab hadlay dadka kale intaynan hadlinba adeerkiisa ayaa hadlay abu lahab wuxuu yidhi maxamadow tabban laka halaag iyo hoog ayaa kuu sugnaateen alihaadaa jamactana ma arrintaanaad noogu yeertay waxa aad noogu yeeris ma intaana maanta maxamed muxuu sheegi doonaa ay naga ahayd ma intaana halaag baa kuu sugnaatay bax ilaahay aayadda suuraddaanuu soo dejiyey tabbat yadaa abi lahabin watab qofka halaag u sugnaaday nabiga ma aha calayhi salaatu wasalaam qofka halaag u sugnaaday oo halaagsamay oo khasaaray oo baaba'ay waa abu lahab tabbat waxaa halaagsamatay yadaa abi lahabin abu lahab labadiisa gacmood ayaa halaagsameen abu lahab marka isagoo nabiga adeerkiisa ah kii u dhowaa isagoo ah ayaa wuxuu noqday cadowyaasha kan ugu horeeyo xikmad weynaana meesha ku jiro haddii hadda xigtadiisa dhan ay wada raaci lahaayeen dadku waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadkiisaaba taageero ninkan qabiil ahaanay u socdaan wax saasoo kaleeta ah wafiir marka abu lahab wuxuu lahaa 3 wiil oo la kala dhihi jiray cutba iyo muctib iyo cutayba cutba iyo muctib way soo islaameen laakiin cutayba ma soo islaamin cutayba gaalnimadiisa ayuu ku dhintay cutba ayaa waxaa qabay baa la sheegaa ruqaya nabiga gabadhiisa ruqaya ayuu qabay cutaybana waxaa qabay ummu kaltuum ayuu qabay oo nabiga gabadhiisa lay ahayd ayadan markii dambe aabbahoodii ayuu ku yidhi wejigeyga iyo wejigiina xaaraan buu kala yahay haddaad furi weydaan moxamed labadiisa gabdhood u fura garoobaha u noqdaane markaasay fureen adiga akhiiran cutba iyo muctib way soo islaameen laakiin cutayba ma soo islaamin cutaybana wuxuu qabi jiray ummu kaltuum ma soo islaamin markii dambe cutaybahan inkaar badan buu ahaa maalmaa ka mid ta ayuu nabiga intuu u tagay calayhi salaatu wasalaam ayuu ku yidhi cutayba maxamadow ana kafartu binnajmi idaa hawaa wa kafartu biladii danaa fatadallaa maxamadow xidiga ayaan ku dhaartay markuu hoobanayo waxaan ku dhaartay kii soo dhowaaday oo laalaasamay qur-aanka waa najmigoo dhaadhaajinaya waxaas aad sheegaysid dhan aniga waan diiday waan ku gaaloobay wejiguu kaga candhuuf tufay laakiin candhuuftiisa nabiga kuma dhicin calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka leexiyey markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma sallit calayhi kalban min kilaabik ilaahow eeyadaadi ka mid taha ku sallid eeyadaadi ka mid taha ilaahu ku sallid cutayba iyo aabbihiisa abu lahab safar bay galeen shaam bay aadeen shaam ayagoo waddada sii dhex marayo oo haweenada ka mid taha ay daalan yihiin way seexdeen ayagoo jiifa abu lahab marka wiilkiisa cutayba wuu u cabsanayaa ilaa nabigaa hawaaray sala allahu calayhi wasalam
ilaahow eeyadaadi ka mid taha ku sallid wiilkiisoo marka mar walba ilaalinayaa dhib buu ka ilaalinayaa bas hadda waa la jiifan rabaa marka wuxuu sameeyey abulahab wiilkiisa intuu soo waday dadkii socotada ahaayeen dhexda ayuu ka geliyey dhexduu ka geli meeshaan seexuu ku yidhi ayadoo la wada jiifo la hurdayo ayaa waxaa yimid liwaax baa yimid wuu tilaabsaday so u socdo cutayboo la baxay wuu cunay cutaybihii meeshaasuu ku dhintay asagana hadda wax ilaahay uu kuu soo dirayo meel walba gal wax ma kuu tarayaan kolka waxaa weeyaan dad inkaar badan bay ahaayeen tabbat yadaa abi lahabin watabba tabbat waxaa halaagsamay oo hoogay yadaa abi lahabin abulahab labadiisa gacmood ayaa halaagsameen watabba isagoo dhanna wuu halaagsamay maa agnaa muxuu ka deeqay canhu abulahab xaggiisa maaluhu maalkiisa muxuu u taray iyo wamaa wixii kasaba uu kasbaday oo caruur ahaa maalkiisii caruurtiisa maxay u tareen waxba uma tarin weeyaan waxba uma tarin maa agnaa muxuu u taray canhu xaggiisa maaluhu maalkiisa muxuu u taray iyo wamaa wixii kasaba uu kasbaday oo caruur ah waxba uma tarin weeyaan sayaslaa abulahabna marka buxusuu ku dhintay wiilka nabiga habaaray waan aragnay cutayba sidaasuu ku dhintay liwax baa cunay baa la sheegaa saasuu ku dhintay abulahab odaygana suu ku dhintay isaga dagaalkii badar markuu dhacay kadib 7 cisho iyadoo laga joogo wuu xanuunsaday abulahab wuu xanuunsaday cudur baa ku dhacay daacuunka oo kaleeta ah oo cadas la dhihi jiray 3 maalmood ayuu meesha iska yaalay baktigiisa wax u dhowaanayo male ilaa uu ka qurumoobo uu ka uro markii dambe Quraysh waxay ka baqeen ceeb in lagu ceebeeyo arrintaas warseeyana seen wasna looma dhawaan kare waxay yiraahdeen gud meelahaas aan isaga aasno ee gudkaas markii la faaga see lagu aasaya ul dheer iyo qori weyn aan soo qaadna aan ku riixno gud weyn bay qodeen ma loo dhawaan karo ul iyo alwaax weyn intay soo qaateen bay saa ugu turanayaan way ku riixayaan ilaa markii dambe gudka uu ku dhacay ciida korkiis gab ay ku siiyeen dulligaas ayaa u dambeeyay aakhira cadaabkeedana bal fiir sayaslaa wuxuu geli doonaa naar ayuu geli doonaa naartoodaata lahabin hulacu saaxiiba sayaslaa wuxuu geli doonaa abulahab naar ayuu geli doonaa naartoodaata lahabin hulacu saaxiiba naar holcayso hulacu saaxiiba ayuu geli doonaa wamra'atuhu wasataslaa way la geli doontaa imra'atuhu haweenaydiisana way la geli doontaa xamaalata alxatabi tii qoryo xambaaris badan xaal ay ahayd wamra'atuhu xaaskiisana way la geli doontaa xamaalata alxatabi tii qoryo xambaaris badan xaal ay ahayd qoryo xambaaristaa waxaa laga wadaa qodxaan iyo qoryo iyo waxyaabahaas intay soo qaado ayaa haweennimadii nabiga waddada uu marayo ay dhigi jirtay sida nabiga salaas wax markuu u soo baxo qodxaanta iyo qoryahaas uu ku qufo ama ay mudmudaan ama waxaa kaloo la sheegaa waxay ahayd namiimoola mid dadka isku dirdirta dadka isku dirdirta ilaa dadka markay isku dirdirto dadkii way dagaalamayaan cadownimaa ka dhexeynaysa rubama inay dagaalamaan ayadaa isku dirdiri jirtay marka mid inkaaran bay ahayd naagtiisana labadood way isla haayeen maalin baa markii suuraddan ay soo degtay intay xanaaqday oo aad u xanaaqday ay nabigu u timid sala allahu calayhi wasalam nabigoo kacbada agtiisa fadhiya waxaana la fadhiyey saydina abubakar radia allahu tacaala canh waxay gacanta ku wadataa dhagax weyn waxay rabtaa nabiga hadday aragto inay madaxa ugu dhufato markii nabigu u dhawaatay sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa araggeedii qaaday ma arkin ilaa abubakar maahane nabigu wuu fadhiyaa laakiin ma arkooso abubakar la u jeedaa markaasay tiri abubakarow waxaa i soo gaaray saaxiibkaagii moxamed inuu i caynayo wallaahi baan ku dhaartay maanta haddaan arki lahaa dhagaxaana afka ugu dhufan lahaa bay tiri markaasay gabay qaaday waxay tihi mudammaman casaynaa wa amrahu abaynaa wa diinahu qalaynaa waxay tihi
midka la xumeeyey waan caasinay mudammam muxamed bay ka wadaa yacni kii la ceebeeyey oo la caayay la xumeeyey waan caasinay amarkiisana waan diidnay diintiisana waan u caroonay markaasay baxday markay baxday ayaa abubakar nabigu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah oo kuma arkin miya ayaditan kuma arkin miya markaasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam ima arkin ilaahay baa araggeedii iga qaaday sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalata alxatab fii jiidihaa luqunteedii dhexdiisa waxaa ahaaday xarigaasoo min masadin liif xaggiisa ka ahaaday fii jiidihaa luqunteedii dhexdiisa waxaa ahaaday xablun xarigaasoo min masadin liif xaggiisa ka ahaaday xarigaasaa qoorta loogu xerayaa lagu jiidayaa qiyaamaha